muuqaalkan waxaan kugu bari doonaa habka ula soo degi lahayd operating system khaasatan Microsoft operating system Windows 10 si aad ula soo degto operating systemka waxaa u baahan tahay inaad hesho internet access iyo browserka kala soo degi lahayd hagaag haddaba aniga waxaan haystaa internet access sidoo kalena waxaan haystaa browserka isticmaalayna waa Google Chrome haddaba marka aad soo furto Google Chrome qaybta URL barka waxaa ku qortaa download Windows 10 kadibna dheh enter linkiga hore ay ku qoran tahay download Windows 10 disk image ISO file ku dhufo kaas marka ku dhufato waxaa ku soo bixi doono safxadan aad ku qurux badan wax kale adigoonan dhihin fadlan ku dhufo download tool now download tool now marka ku dhufato waxaa ku soo bixi doono farshanka ugu dambeeyay ee operating systemka Windows 10 hadda jiro waxaa loo yaqaanaa 20H2 fadlan ku dhufo download faylka waa 18 MB ma ahan operating system saxda ah laakiin waa fayl noo suurtagelinayo inaan la soo degno operating systemka haddaba markuu noo dhameeyo downloadka waa isku soo laabanayna hagaag haddaba waxaa noo soo degay faylkii noo suurtagelinayay inaan la soo degno Windows 10 haddaba waxaan bilaabi doonaa habka ula soo degi lahayn Microsoft Windows 10 anagoo isticmaalayno Media Creation Tool si aad ugu shubato ama ula soo degto Windows 10 fadlan ku dhufo faylkii aad la soo degtay adigoo leh double click kadibna dheh yes wuxuu qaadan doonaa waqti yar si uu faylku u soo kaco hagaag marka aad ku soo dhufato faylka waxa ku soo bixi doono agreementigan waa muhiim inaad akhriso haddii aad ka gaarto fadlan ku dhufo accept waxay qaadan doontaa daqiiqad yar inuu kuu soo baxo talaabada xigta u dulqaado waxay ku xiran tahay internetkaada iyo kombiyuutarkaada xawaarihiisa hagaag talaabada xigta waxa ku soo bixi doonto labadan option ah upgrade this PC now ama create mania installation farqiga u dhexeeya waxay tahay upgrade this PC now hadaa ku dhufto kombiyuutarkayga anigoonan faylal iga tirtirmin oo wuxuu isku bedeli doonaa farshanka cusub balse kombiyuutarkayga farshanka hadda isticmaalayo waa farshankii ugu dambeeyay ee ah 20H2 farshankana waxaan ku shubay 3 bisha koowaad 2021 ee mareeda maanta 4 uma baahnin waxa u baahanaa inaan helno disk image-ka ama ISO file-ka waxaan dooranayaa create installation media kadibna waxaan leeyahay next haddaba kombiyuutarkayga oo wuxuu si automatic ah u soo saaray farshanka kombiyuutarkayga ku jiro ah 64 bit laakiin haddii aad rabto 32 bit inaad soo dejiso fadlan tigti ka qaad use the recommended option kadibna ku dhufo architecture-ka oo ka dooro 32 bit ama ku dhufo both si aad ula soo degtid labada farshan sidoo kale luqadda ku isticmaali lahayd meeshan ka dooro nasiib xumo Soomaali nooguma jirto waan iska isticmaalaa marka English United States kadibna waxaan leenahay next optionka kale xiga waxay tahay ma waxaa rabtaa in aad ku shubto flash mise waxaa rabtaa inaad la soo degto faylka oo ah ISO file haddaba anaga waxaan u baahnaa inaan la soo degno ISO file asigaan dooranaynaa kadibna waxaan leenahay next kadib wuxuu ku dhahayaa faylkan haddii aan soo dejino intee dhigaysaa waxaa leeyahay faylkan markaa soo dejisid desktopka noo dhig kadibna waxaa leenahay save haddaba waxaa bilaaban doono downloadkaada waa 4GB waxaa laga yaabaa inay kugu qaadato maalmo ama saacado waxay ku xiran tahay internetka haysato xawaarihiisa intuu dhan yahay markuu noo soo dego isku soo noqonaynaa